heshiis hordhac ah ayaa laga gaaray dagaal beeleed kal hore ka dhacay deegaano hoos yimaada degmada Jowhar. Heshiiskan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa halka uu ka dhacayay gudoomiyaha degmada Jowhar Cismaan Maxamed Mukhtaar Baarey, gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Beere Makaraan, gudoomiyaha maxkamadda sare ee Hirshabelle Cabdullaahi Maxamuud Gacal, odayaasha labada beelood, culimada degmada Jowhar. Ugu horreyntii waxaa madasha ka hadlay Sheekh Cumar Shaami oo ka mid ah culimadiinkii dhexdhexaadinayay beelihii khilaafku uu ka dhaxeeyay. Allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh mar kale halkaan nagu kulmiyey maalmahan arrintii maslaxadda aan u fadhinay gabagabadeedii iyo gunaanadkeedii iyo kala saxiixashadeedii maanta u fadhinaa. ilaah baa ku mahadsan. waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala ijtihaad iyo dadaal la sameeyey inuu ajirkiisii ilaahay uusan naga dayacin ayaan rajaynaynaa. maxaa yeelay nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa xakama alxaakimu faijtahada uma asaaba falahu ajraan. xaakimka hadduu xukun gaaro oo xukun rido ijtihaad uu sameeyey iyo baxthi uu sameeyey arrinta siday la noqotay aqoontiisa iyo garashadiisa iyo xogta sida loo dhigay oo wax ku xugmiyey oo xaqiina asiibay oo sida saxda ilaahay u waafajiyey falahu ajraan, laba ajir uu leeyahay. asiibada xaq waa asiibana ajir uu ka helayaa, sidaas oo kale wuxuu ajir ka helayaa dadaalku uu sameeyey. وإذا اجتهد هدو دلال حاكمكي أو حكم سدا أو كريدو ثم أخطأ حكم كين أو جفاء سئ مركز صح هين أو ضعه، لكن اجتهاد كيسي أقون تيسي ولي مدى سجى دلال كيسي، لكن أرنت سدي للربيسي أنا هين يودع ذي وإلى أكتيس أي خطأ كتهاي، لكن عند المسألة صح كتهاي فله أجر ليه هاي مربى مركز أجر كينو سند يعمل أي مركز إن شاء الله تعالى إلهي كرجينينا. waxaan rajaynaynaa in aan maxuu ahaa isku dayaynay wanaag aan ka hortegaynay walaal isdila dambe iyo dhiig dambe inuu daarto kortegiisii ayaan intaa u sameynay. mas'aladan insha allahu tacaala intuu ilaahay naga fahamsiiyey intaasay aheeday. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ku baryaynaa ajirkiisa ajirka mas'alada iyo dadaalkii aan bixinay waqtigii aan hurnayba inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ajirkaasi una seejinin na waafajiyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan ka baryaynaa inta markaasi kaalin ka qaadatan sidaas oo kale ajirkooda ay leeyihiin biidnillaahi albaari. Cabdisalaan Cabdi ayaa madasha ka akhriyay qaybo ka mid ah qodobadii lagu heshiiyey. qaar ka mid ah culimadiinka degmada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe iyaga oo ka duulaya khilaafyada daba dheeraaday ee dhexmaray labada tuulo ee deriska ah ee walaalaha ah ee reer Mareerey Waaqbiye iyo reer Baarweyne Baare. waxa ay dhageysteen dooda labada tuulo kadib dhageysiga dooda culimadu waxay sameeyeen baaris dheer oo diineed taasoo looga sal gaarayo dhibaatada dhacday maadaama dadka deegaanku inay ku kala xukumaan shariicaduna ay tahay halka kaliya ee ay ku heshiin karaan. culimadu waxay xukumeen in la dhaariyo ehelada labada nin ee dhimatay kana soo jeeda reer Mareerey oo ah dhinaca dacwada qaba in ay ugu dhaartaan 50 dhaarood qofkiiba labada nin ee la dilay. culimada iyaga oo daliishanaya fiqhiga islaamka gaar ahaan kitaabka la yiraahdo fiqhul minhaj ee Imaam Shaafici mujalladiisa saddexaad ee madbacada Daarul Qalam Dimashq. haddaba shakhsiyaadkan hoos ku xusan oo kala ah Xuseen Abuukar Mahdi oo 30 dhaarood ah, محمود مهدي مهد مهدي وطبعاً دارودا عبد حاج سفر موسى وطبعاً دارودا وحي كرداتين إن جيدو وليد مودي وحبت كدلي ويل كودا عبد القادر أبو بكر مهدي. سيدو كلا شخصيات كهوس كحسن أو كلا صديق أحمد حيدر صدن دارود إسماعيل أحمد حيدر لباتن دارود وحي كرداتين إنه نور مع أبي بكر موسى وبابا كدلي ويل كودا عبد الله صديق أحمد. صحيح عياشة علماء جوهر شيخ عمر محمود أحمد شيخ عبد الرحمن يوسف علي شيخ عمر محمد عبد القادر. صحيح عياشة نبضونا لبض بيلوت بارئية واقبية وكلاه إسماعيل يونس عبد الله قدومية تولد مريري محمود إسماعيل علي نبضونك بيش واقبية حسين موليد مودي قدومية تولد باروين إسمان أحمد أبوكر نبضونك بيش بار. صحيح عياشة صحيحة قوب جوغياشة دنك مامولكا شيخ عبد الله قعل
gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowladda Hirshabelle Cusmaan Maxamed Mukhtaar gudoomiyaha degmada Jowhar iyo saxiixa gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Mudane Axmed Meere Makar. dhanka kale nabadoon Yacley iyo nabadoon Ismaan Axmed oo ka kala socday labada beelood ayaa sheegay inay ku qanacsan yihiin heshiiskan arrintan noo fududeeyay gaar ahaan culamaa u diinkii degmada Jowhar iyo juhdigii maamulka iyo gobolka iyo degmada arrintan xaaladaha culus soo martay ilaahay ku guuleeyay oo soo afjaray ayaa ilaahay mahadaas ilaaha iskale mahadaas ukaa iskale warun dadkan daddirise ee walaale ayay dhibaatadan ka dhexdhacday juhdiga iyo iska daba orodka iyo culayska iyo cariiriga aan marnay wax dhow ma ahan haddana meesha ay noo marayso ilaahan ku mahadinaye intii juhdigaas oo ku bixisay aan ku mahadinaynay waa ku qanacni waana qaadanay intaan iska daba orodni ma dhowa meelna waa ku soo dhawey wayne haddana meesha ugu dambaysay joogtahay waxaa la yidhi ilaahay ana cafiya odayaalaan nahay war saxan iyo war sahlan iyo war suganaa la yidhaahdaa warka saddexdaas leh war sahlan waray cilmiga inaag sheegeen waay meeshaad ku maqashid lagama qaadaa la yidhi meel xumoba ku geynaa dadka qaadi war sugan waro waayeel sheega waay oday hebeloo 80 jir ahaa sheegay loogu noqonayo la leeyahay war saxan waray culmo sheegto waa ilaahay yiri rasuulkiisa yiri meel oo loo dhaafayo malaha anigu hadda ilaahay nacafiyo waxaa la yidhaahdaa odayaasha qiyaamo walaxa u jiraa la yidhaahdaa ilaahay nacafiyo sababtoo wax kastaba hadda sheekh afkiisa waxaa ku jirtay waladudamka ayaa yacni in laga qanciyo ogolaanshihiisa iyo siduu jecel yahay in la sameeyo waajib anigu waxaan leenahay usubiriga hadduu wax dil usma iska dhiibi karo anigoo qabiil ka weyn warkiisa waxaan ilaahay aan ka baryayno aan ilaahay naga cafiyo aan ka leenahay waxaas waay hadda sharciga ku dhammaatay waa qanacsannahay walaalahaynan way qanacsan yihiin waxay dhimanoo naashnaasha hadduu ilaahay yidhaahdo waa dhammaystiraynaa mana naga dhex bixi doontiinoo meel baan isla wada dhigi doonaay waa mahadsantihiin ilaahay ajri xasanaad allah idinka siiyo alxamdulilah khallaaskii iyo dhaartii meeshaan ka dhacday maanta mehaan isku soo kulannay afirta ilahi wanaa hijacanku salaama salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alxamdulilah intii dhimatay ilaahay u naxariisto sabar imaan ilaa anaga siiyo maanta culumadan alxamdulilah kitaabka ilaahay anagu kala xaq soortay waa ku faraxsanahay qallaas iyo buuq managa dhacan ilaaha khayrkaas keenay wixii ilaahay kana shar iyo khayr ilaahay maadiisi waaye marka alxamdulilah waa isku raacsanahay waa ku ijaawooni waa ku tawfiiqan dhiiggii ina macnaha walaalahaana oo inanka nagu tuumayeen waa idishi iyo maku dilan oo isku haasani alxamdulilah dhiiggii unankaana soo maray unanka heer baare oo heer baarow aan qaadanay waa kitaabka ilaahay alu kala baxay haddana waxaa jecelnahay dhiiggii oo baarow tabayay dhaawacii iyo haafkii wixii dii ahay iyo wixii guri oo la gubine inaa meel fiican u marto oo wanaagsan qayl iyo qallaas iyo buuq naga dhacan mar dambo walaalahan shalay waa is aragnay waa kulanay kulay nabadoonka gaala ugu dooma cidii la soo tashaha la soo shuuriyaa heri wax man laga waayo waa ku faraxsanahay waa qaadan ugnay waxaanu salaanta islaamka wa assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh ugu dambeyntii waxaa madasha ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda sare Cabdullaahi Maxamuud Gacal iyo gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Meere Makraan ayagoona u mahad celiyay culimada diinka dhexdhexaadinayay
beelihii dhowaan ku dagaalamay deegaana hoos yimaada degmada jowhar. ilaahay baa mahadle noo suuro geliyey khilaafkii labada qofoodoo dhintay mas-uuliyaddeeda la isku haystay cidda iskale in maaragtay culummadi loo baxshay ay go-aan ka soo gaareen oo qoladii mudiciga ahayd ee waaqbiyo dadkii ehelka u ahay labada nin ay dhaariyeen min 50 dhaarood mas-uuliyaddii labadaa nin dilkeedana laba nin oo beesha baara ka tirsan inay mas-uul ka ahaayeen lagu dhaariyey dadkii raximka u ahay labada nimoo dhintay sidaasna la isku waafaqay labada beeloodba shareecada islaamka iyo go-aankii looga gaaray dhimashadii labadaas marxuum mas-uuliyaddeedii inay yeesheen beesha baare khaasatan baara weyne inay mas-uuliyaddii dhimashadaas ayagu leeyihiin dhinaci kalena ay ku dhaarteen. intaasay arrintii noogu soo gebagabowday. ilaah baa mahadle. yacni shareecada islaamku waxa kali ah oo qofka muslimkaahu haddii xaq lagu saarana uu ku aaminayo hadduu xaq doonanayana ku aaminayo waa ayada. waxa kalena waa wax bini aadanku sameeyey khaladaadkooda yeelan karaan. waxaan isleeyahaa marka arrintaasu waa dhammaatay. wixii ka dambeeya oo mas-uuliyadda ka timiday dilkaa wixii ka dhasho mag-e cid bay koreen. wixii kaleoo ka horreeyey ee amba dil ahaay amba deb ahaay khasaarihii ka dhashana hore ayaa lagu hadlay. hore ayaana maaragtay meel wanaagsan la keenay. waxaan filayaa marka idoo labadii nimoo dhineedna la og yahay wixii horuu dhacana la og yahay labada beelood inay ka fadhiistaan oy maaragtay wixii khasaaro dhaca waaba qoran yihiin nimanka ragga dhintay yacni magtoodii inay ayagu heshiis ka gaaraan qaymo ahaan ay ku heshiiyaan iyadoona la tixgelinayo welidamka dadka dhintay xaqooda na laga qaybgeliyo si oo lagu dhammaynin kaliya dhaqan laba beelood oo dadka dhintay dadaas kale xuquuqdoodii diyadoodii dad ay ka go'daa hadday rabaan way cafi karaan hadday rabaan diyay qaada karaan. hadda qisaasumaba jirto dadkii labada dhinac loomaba haayo laakiin warasadii waxay sharciyan leedahay inay cafiso dhiiggaas inay diyo qaadato kaamila inay diyo nusa qaadato iyagana laga qaybgelinayo talada in labada beelood u fadhiistaan arrintaas go-aan loo dhan yahay laga gaaro. waxay magtaasu noqonayso iyo muddada la bixinayo muddooyinka la bixinayo in inta laga heshiiyo ayadana qoraal laga dhigo maamulku uu goobjoog ahaado. intaasaan ayadana aan idinku biirinaynaa si ay u dhammaato wixii shaydaan dadka walaalaha dhexdooda dhigay shaydaana ka shaqeeyey in laga daawoobo markaas wixii ka dambeeyo markii laga heshiiyo magta qiimaheeda wakhtiga la bixinaayo khasaaraha dhacay waa la ogyahay ayagana wakhtiga lagu bixinaayo marka intaasoo qoraala la sameeyo kabacdina waxay u noqon doontaa wixii ka dambeeya dadkii walaalaha ahaay inay gacanta isgeliyaan in la iscafiyo in walaalnimadu tii hore ahaato in wixii shaydaan maaragtay soo galay ilaahay laga magan galo wixii dembiyoo dhacay ilaahay loo tooba keeno. intaasaa nagu waajibaysa. annagana ka qaybgalkayna iyo joogistayna midaan ku cadaab mudano ilaahay noogama dhigo mida ilaahay noogu dembi dhaafo inuu niyad wanaagsanaan wadnaaye
niyadayna ilaahay noo aqbalona allaha nooga dhigo wixii aan ku dambawnana ilaahay aan ugu tooba keenaynaa waa ogefoo naga dhacay anagoo dad iska waxaan nahay maaragtay addoommanahoo aan dhammaynoo iska nusqaana wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu بعد سلام إلهي بمهد السكالة هوش عن مدة بدن أن لسود على دعيني ما أعرف مدة بدن كجرني إن إلهي نوفل ذي شالة آدي آدنا ما أعرف عن أوجو نوغلا شقيان قدوميها محكمة السراء علماء ودين كدقمة الجوهر رنهانتي هدي ما أعرف وحلا سوق بتين كتاب إلهي لولا توحوون أكسن ومارتي dad muslim ahaan nahay in ilaahay taabkiisa loo laabtan wax ugu wanaagsan qofkii wax qaadayna oo wax u qaato qofku wuxuu helaayeen oo uu helaasay wax ugu wanaagsan waaye waxa meesha dhaxday dadkan dhaxdoodii inuu waxay ahaayeen waxa nolosha koonkan taal waxa uu qaalisan waa bil aadanka dad bil aadan hor dhintay oo maarta arintooda ahayd arin yar ma ahayn haddana alxamdulilaahi sida maarta ilaahay noogu fududeeyey labada dhinacna ay ugu qanceen inay ilaahay kitaabkiisa culummada taqaana loogu yeero ayna ku kala saarto waa wax maartay aad iyo aad aan ugu ammaanayna ayagana dadaa sida ay maartay u fududeeyeen hawshu markay muddo ka habawsanaato maraa ilaahay ku waafajaha maxkamadii hadday noo dhisnaa lahayn maxkamadaha hawshaas geli lahay laakiin maadaama maxkamada dhisnayn waxaana ay maartay shariicada loo celshaliyo waa in dadka ahalka u ahay laga doono magaalada ay hawshaas markaas ay sidaas maartay ilaahay noogu fududeeyey waxaan rabnaa wixii kalena hadduu ilaahay yiraahdo maalmaha soo socda ayaan rajaynayaa in ayagana ay dhamaadaan dhacdadan oo labadan wiil arintooda ahayd hadda ku dhamaatay in maartay dhaartaas ku soo dhamaatay wixii ayaga ay maartay xaq u lahay wali damkii iyo dadkii ahalka u ahay iyo wixii kale dhacay oo noo rahmanay intaba hadduu ilaahay yiraahdo waxaan rajaynayaa akhyaarta iyo gudoomiyaasha iyo culimo diinka labada dhinacba warbixintaas hadduu ilaahay yiraahdo ayagay xaqooda jirtaa waxaan rajaynayaa in maartay maalinta khamiista la soo imaan doono markii la soo yimaado howlahaas hadduu ilaahay iyadana maartay meel la saari doono marka alxamdulillah inta noo soo qabsanay ilaahay uga mahad celinayna inta noo dhiman inuu ilaahay noo fududeeyo ilaahay maartay weydiisayna marka culimo diinka iyo gudoomiyaha maxkamadda dadaalkii ay soo dadaaleen meeshii kaalintooda ay anaga la soo baxsheen halay kale anaga sii daadiyayna hadii ay maartay wax kale loo baahday ay soo baxaan oo u yeeri doona hadduu ilaahay yiraahdo aadaan u mahadsantiin qaraabada labada dhinac khiyaarta oo nabadoonada iyo culimo diinka iyo gudoomiyaashana insha Allah waxaan ka rajaynayaa ayagana hadduu ilaahay yiraahdo ay soo fududeeyaan hawshaas ilaahayna ha soo fududeeyaan leenahay in wax tol ka dhaxeeyo waa wax laga hadlayo marka aad iyo aad maartay ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa mahad iskale noo fududeeyay dhamaan inta soo shaqeysana uga mahad celinaa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh